xalku wuxuu noqday inaanu guurtii iyo dhisugu socoteen inaanu u diibno arkuna arrintii muxuu ahaa halkaasina la martay waxaanu doonaynaa guurtii in arrintii gashaan haddaan markii hore idinku nidhi annagaa idinka qaadayna annagaa idin furanayna waanu idin furan kari weynay markaa muxuu ahaa idinkaa ilaahay idinka wada hawshaa inaad gashaan sidaasaanu arrinta ku gumaynay waana iyaga ugu wareejinay 9 subaxnimo ee berita ayaanu halkan ku ballansannahay in markaa wixii macluumaada laysu kordhiyo wadajir ayadoo yahay iminkana wadajir baan ugu yeedhno waa arkayseen balsena wadajir inaanu u gudbino wixii muxuu ahaa biyo kama dhibcaanku ahaa ee la soo gororiyey oo ku soo ururay qodob ama laba qodobada isku mari weydeen xildhibaan maxaa kamid ah ama qodob ku soo aroray runtii ma jecli inaan nuxurka doodaas aan imika u gudbo بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حويه ده كله waad u jeedeen inaanu ahayn laba qaybood oo ka tirsan golaha wakiilada jawigu guud ahaan uu fiicnaa meelo badan baanu isla dhignay wax badan baanu ka wada hadalnay waqti badan bay nagu qaadatay laakiin conclusion-kii iyo gabagabadii waxaad moodaa in wax isu kaya gali waayeen oo ay sidii aanu rabnay labada yada gudoomiyana waxaanu tiragelinay inaanu qancino labada dhanba runtii Cabdiraxmaan iyo aniguba xitaa fikirada kama aanan qayb qaadanayn inta badan waxaanu wax isugu soo dhaweynayna maahe laakiin waxay u muuqatay xoogaa inaanu riixi kari weynay runtii haddaanu riixi kari weynana waxaanu ku khasbanaanay inaanu u gudbino oo odayaashii markii hore talada golaha ka qaatay inaanu ku nidhaahno odayaal mar labaad soo gala taladuna halkaasay maraysaa odayaasha guurtiduna waa kuwii dhaqanka Soomaaliland wax badan ka soo qabtay oo waanu ku kalsoonahay inay inaha aanu anagu iskelgelin kari weynay inay iyagu iskelin doonaan waana hay'ad constitutional oo u qaabilsan marka hay'adaha dawladdu isku yara dhacdhacaan inay dhexdhexaadiso waa constitutional habaad riixi kari weydeen xildhibaan maxaa waxay gadaal baa ka iman doontaa laakiin kolley mowqifkii iyo gudinimadii iyo labadii garabaanu meesha isugu tagnay kuma aanan guulaysan ma la oran karaa fargelin bay ku jirtay waxaan ilaa maalintii la idin xil saaray odayaal baanu nahay hadda hawshii waanu riixi kari weynay wax kale oo jiraana ma jiro tan baa jiro sallaxaynta xorta اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قلت waxa weeyaan horta qabar baa dhacay qabar baa وانا سoo ku soo kala kacay maanan jeclayn inaan ku kala kacno qaranka oo dhan baan eegayay 7 aan ahayn waxaan jeclayn inaan wuxuu isla gaadhay meel baan anigu hadaba ma soo hadalkayga waa soo gaabinayna bayga dambeeyay waxaan ka tagay waxa oran loo yarka oranayo isaga afkiisu deesan la caleed ya sallallahu alayhi iga fasaxsan halka waxaan ku kala kacnay mooshin baa yaalay mooshinkaas wuxuu ahaa gudoomiyaha 24 hal keen wixii hore go'aamo golay haydo golaa ka gaadhay arino waxa laaliyo wax nooga fasaxa inaanu ka hadalna deemay jirin mooshinkaasaanu ajanda ka dhigan in 24 gudoomiyaha la keeno halkaas oo hadalkaygu ka bilaab garabkan laga soo horjeeday dhinaca xukuumadda taabacsan ayaa codsaday guurtida ka codsaday inaanu anagu gudahayaga ka wada hadalno markii taa codsadeen waxaanu isnidhi wallahi dee nimanku dee idinka shilise mar hadday iyagiiba sidaa yidhaahdeen dee aqbala iyagaa dee malaa dee arrinka dee soo dhaweynayay sidii baanu annana ku aqbalnay 4 maalmood baanu hadda wada hadlayay waxaan idinku gabagabaynayaa iyagu qodobkii kamay kicin anagu waa ka kacay ii kaadi anagu waanu ka kacay iyagu qodobkii bay taagnaayeen 24 gudoomiyaha la kan 24 afartii maalmood taasaa waagu noogu bariyay gabal noogu dhacay dib maxad ka kacay
أنا جانا ولد الشيء مايا كم حنا قينة سؤالها مربان iyagoo halkaasay taagnaayeen maalintii koowaad ilaa maanta annagu waanu ka kacay annagoo qadarinayna dadweynaha annagoo qadarinayna buuqii iyo duulaankii ugaabkii la ogaabay dee shacbigu dee kacay annagoo waxaasoo dhan qadarinayna saddex arrimood baanu soo jeedinay annagu waxaanu nidhi warnimayo guddoomiyaha 42 keenaysaa waa dil war dilka inaga daayo aynu nabad ka talino war labadan aanu markii hore dilka loogu talagaleena aynu nabad kaga talino war saddexdaba aynu 5 geyno halkaa nabadi ha taagnaato oo qoorgooyadii aynu ragga ka furan waa qodobtaas waa option aanu keenay optionka labaad wuxuu ahaa waryaale waa taasoo dadkeennii waa yaabay reer Soomaaliland waa kaceen indhihii ummadda inagu soo wada taagan talo maxay soo saari baa la leeyahay dadku waa wada alert si nabadi u dhacdo warima mooshinkaasuna qaa'im haydin haado ha taagnaado oo sidiisa ahaado fasaxiina salaasadaynu galeynay aynu fasaxa gallo oo labada bilood hal kala nasto dadkuna ha degaano sallallahu alayhi isku soo noqono dabadeetana mooshinkii halkii ka bilowno yana soo option ma option ka saddexaad waxa weeye wariyaan haddii arrinka halka marayo وأنا ندرس الله على الدين أي لبدا بدي هداد ديدين يا أينو حتى بنا بتكترينه إلى هاي الدين قلت تسوى قوله إني لبعضه ما كورنا يجي على كلها يدك كان ما هذا كان ذي أو حبكم كلهم ويدين هل كينون أتاجنا يدين وذي أشياء قلت دين هاي نكلا حكومة أنا ولا يروحي هل كان لقى حكومة أغبر حط صدق هذا أوبشن بانو أنا قلت كان ولا دي شيء صدح دي اوبشن في قدام بيوم بدي قاتل اها انا كو عيبسنينتي كي دي انا صلى عليه ما هيجي يا كلامده يدي inkastoo daan wax weyn u dhameeyno odayaasheenii yihiin marka horena nimanka deena kala furtay ay ahaayeen horta halkaasaan ugu soo cilna taasaan isla aqbal waxaan anigu raacinaya waxa weyn halkan nimanka iyaga waxa moodaa ee anaga deenoon buqata nimanku de wax golahayaga waragi markii hore 42 ka keenay raggan waraga wiil isku bedelay hadana xaq kale ka soo jeestay taladu inay maanta gacanta ugu jirin baan arag shacbigana waxaan u leenahay deendina macallina anagu waxaan u garanay waa la diiday taladayadii halkaas ay taagan tahay waana la yeerinayaa telefoonka saacad walba socda maxaa soo dhacaydaas la hayaa sidaas aan kaga baxaya بسم الله الرحمن الرحيم فرضا فرق ugu horeysa بسم الله الرحمن الرحيم horta waan salaamaya bulshooyinka rasuulka waxaan leeyahay ومرن في الحقيقة مرن قرها كان شيء ما شلي وأوجيدين وقوله وامدسنا هنقول هذا وخلافي وعكاسي كم تاجنين خلافه maanta yaala dibadda naga soo tooray marka ugu horeysa waxaan leeyahay hal wala helaya dadku haystijiso waxaan jeclahay inaan intii saaxiibkay yiri wax yar kaga noqdo ugu horeyn dadku waxay heshiyaan marka cidda la isu saaray taladu labada dhinacba ay haystaan mandate oo taladu ku hayso way waxna ka tanaasuli karaan
waxna ay ku kordhin karaan nasiib darro waxaa muuqata qoladii aan soo fadhiisannay inaan taladoodu iyagu aanay jeebkooda ku sidan ee taladu ay mataqaanaa ay ka dambaysay golahana ay ka baxsanayd taladu oo ay runtii lug ku leedahay xukuumadda taasi bulshada kama dahsoona waxaan ka dahsoonayn bulshada faragelintii tooska ah ee xukuumaddu ay golaha faraha la soo gashay waxaa og tihiin liverpool hanjabaaddii ka soo baxaysay in halkan laga dhabeeyey oo laga rumeeyey waxaa og tihiin in shirarka maxaan ku dhahay xildhibaanada meesha lagu ururinayey haddii bidmaayo mooshinada lagaga saxaxayey inay ahayd guriga madaxweyne ku-xigeenka waxaa og tihiin in ay wasiirada badankoodu goobjoog ahaayeen waxaa og tihiin in wasiirada xukuumadda loo wada diray nin walba xildhibaankii ay isku reer ka ahaayeen ama ay meel qaraabo ka ahaayeen ama ay saaxiib ka ahaayeen ama wuxuun ay ka dhexeeyeen oo la yidhi ka soo saxeex mooshinkaas waxaa og tihiin arrintaasi inay tahay faraq gelin qaawan oo dastuurka ka soo horjeeda waayo dastuurkeenu si cad buu qeexayaa in haddii bidmaayo waaxaha garsoorka fulinta iyo xeerdejintu ay kala madax bannaan yihiin madax bannaanidii golahu qiiro ku jira haddii madax bannaanida golaha la waayo oo madax bannaanidaasi ay daciifto dawladda la xisaabtankeedu si kasta ha u wanaagsanaato ama ha u xumaato dawladda la xisaabtankeedii meesha wuu ka baxaya golahana waxaaba loo doortay oo dadku ay u soo egmadeen oo ay maxaan ku dhaha magaca kula baxeen wakiilada inay dawladda la xisaabtamaan maxay kula xisaabtamaan dhaqaalahooda laga soo ururiyey sida loo kharash garaynayo maxay kula xisaabtamaan sharcigii iyagu ay baasgareeyeen sida ay u fulinayaan inay ku dabagalaan maaha xukuumaddeenna qura xukuumad kasta oo adduunka joogtaa ma jeclaa in lala xisaabtamo waxay jeceshahay xisaabtanka inay ka baxsanto sida qura ee ay uga baxsan kartaan waxa weeye in baarlamanku la xisaabtamaya inay daciifiyaan inay iyagu maamushaan inay gacanta ku hayaan waxa oo dhammina marka run la sheego halkaasay ku soo ururaysaa markaan usoo noqdo fadhigayagii qodob baanu isla dhaafin waxaa kaloo dhan ka kaca guddoomiyaha waxaanu ka dhigaynaa 42 iyo saddexda guddoomiyaba waxaanu ka dhigaynaa 55 sidii weligeed ahaan jirta waa og tihiin qodobka 42 rag maanta dhinaca kale ka soo jeeda ayaa waday iyaga dabada ka riixayay maantana qodobka iyaga ka noqday oo waxay go'aan ku gaadheen in guddoomiyaha ay 42 keenaan 42 waxaa loo keenay labada guddoomiye ku-xigeen in la rido oo cod sahlan oo 42 coda loo helo oo lagu rido maantana 42 guddoomiyaha waxaa loo doonayaa in cod sahlan oo 42 loo helo horta waxa la isku hayaa waa taas annagu waxaanu leenahay war qoladii wadatay 42ga labada guddoomiye ku-xigeen 42 ha la keeno oo aan ridno oo rag kale boosaskooda ha fadhiisteen hadday ka noqdeen dee halkoodii ku soo celiya waxaanaan annagu qaadan karaynin guddoomiyaha waa ridaynaa oo taasi muujinayso 42ga ay doonayaan waxaana muuqataa nin baa wuxuu yidhi reer burcaa wuxuu yidhi arrin aan ka hadhi waayo haddaad aragtaan cambara igula jirta cambar waa islaantiis nin haddaad aragtaan arrin gar lagaga leeyahay oo uu ka kici waayo cid baa dee uga dambaysa annagu waxaanu leenahay
compromise intii la yeeli karayay waanu yeelnay waxaanu yeelnay war xeroosaadka rag baa ka cawday war xeroosaadka golo wanaajin buu ahaa haddii wax ka qaldan yihiin waynu haynaa oo golaynu nahay oo waynu joognaa oo hagaajinaynaa haddii wax ka dhimayeen waa ku daraynaa war wixii kale laga wada hadlayo waa laga wada hadlayaa golay waa wada joogaa laakiin aan meel iska dhigno arrinta ridista guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku-xigeen goluhu hawlihiisii kale markaasuu qabsan karaa waa ogtihiin oo qodobka 42 golayaasheenii deegaanku ayaa khibrad lagu qaatay micnaheedu waxa weeyaan ninka maanta mayor loo doorto saadaba waa la ridayaa khibradda inagu ka faa'iidaysanay golaha guurtida iyo golaha baarlamaankuba waxa aynu ka dhigannay in 5 lagu rido si ay u adkaato oo aan loo helin ninka 5 lagu ridaa nin hogaamintiisu xumaatay weeye ninka 5 xildhibaan ay ka soo horjeestaan oo maxaan ku dhahdaa golaha cod intaa ka badan ka waaya waa nin hogaamintiisu xumaatay hal la rido laakiin 5 waxa in guddoomiyuhu uu meesha raandhiis noqdo oo ku waaro oo goluhu hawlihiisa kale waxaan leeyahay qoladaasi aanu soo fadhinay waxaa nooga muuqatay in talada meel kale oo golaha iyaga ka baxsan looga yeedhinayo annagu go'aamadayada full mandate baan la soo siiyey intaasoo jeerba waanu ka kacnay waxaanu islahayn maslax baa gaadhaysaan maantana golaha guurtidu wixii ay gaadhaan waanu ku qanaynaa oo kalsoon in badan baa dina la sugayay ra'yiga bal inaanu wada hadallo oo ummadda iyo guurtida iyo cid kastoo arrintan danaynaysa ka furo horta annagaa soo jeeda nasiib darro saaxiibadeedii aanu dooda ku wada jirnay ee aanu xalka wada doonaynay golaha ka wada tirsanayn hadalkooda waa maqlaya wuxuu yidhi dhidar baa carruurtiisii dhalaalkiisii wax ka cunay shabeel baa ka cunay markaasuu wuxuu yidhi markuu fiidkii yimi dhalaalkii oo laleeyay dhalaalkaygii shabeel ma layn buu giiraa laysay dawladda waxay ugu cararayaan halkaa iska fadhida ummadda oo dhan dawladda u ah waa giiraa laysay annaga aysaynoo xildhibaannaa annaga golaha majority baan isku muquuninaa kii maanta majority helaa waa nasiibkii wey ma aha inuu galgasho ninku oo marka uu majority-ga waayo uu dhul kale eedda saaro ma waxaa markhaati ka ah ama gar ha ahaato ama gardarra ahaatee shalay markii foodhituu laga dhigayay labada guddoomiye ku-xigeen oo la mida guddoomiye allana xeera somalilander isagoo kale ah kursiga la fadhiyey awoodda laga qaadayey dhulka la fadhiisinayey cirro waa fadhiyey ma diidin inta kale oo goluhuna waxay aqbashay majority-ga maanta sababta uu u diidayo cirro iyo saaxiibadii majority-ga u diidayaan ee qayla dhaanta iyo hadba golaa waan xidhay ugu cararayaan waa gardarro waa cadaalad darro waa dimuqraadiyaddii aynu qaadanno ay ka hor yimaadeen rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi maslo inaanu nahay ay tolimo meerto noo tahay cadaaladda caynkaas waxa maanta adiga kugu xunshanay miyaanu curra garanayn daadkan uu isagu faruuray ee oodii ka qaaday ee 42 uu rag ka dhigay ee daabta fadhiisiyey ee mooshinkii saddexaad u diyaariyay lagu ridi lahaa miyaanu garanayn in ragda waa soo rogaal celino warbari adeeg ka isku rog hadduu se taa garan waayay oo taa garan waayay oo dee ninka dhan maanta madaxweynaha doonaya taa garan waayay ma wuxuu garan waayay war haddana waa lagu hayaa haatan ku haleeli dee nasiibso oo majority-ga golaha aqbal buu garan waayay intaasi way ga hordhac waxaan raacinayaa halkan markaanu isugu nimi waxaanu soo jeedin war waa aragtaanoo fallaadhii aa shalay rideen baa maanta idinku taalla wadinkaa golihii fadhiisan waayey shalay macaanaa wadinkaa xukuumadda oo muruxsanaya waa idinkaa shadow ministeriska golaha nala jooga waa madaxweyne mustaqbalka waa guddoomiye xisbiga wadani waxaan ogol inuu guddoomiye noo ahaado ma aha hadh ka weyni ma jiro inta miskiin yaroo wasiiroo meel jooga gacanta lagu taagayo waa aqbalaynaa
سامين ويكولين حسبيضو إلا ويكسر بحين حلبانو يكسر بحينه سامين بيكولين لكن نيك استعبها كذا بيه مجورة تبان كابحنا فرتوا مركب كوالي مجورة تيجي يوحي عنو دجاني يوحي يقولها ويالي صاحب دي وديدي يجو أقلية عادو يرمانت ودوري لواتن ترى أنا كرو دافين أياني قولي هو عندك الدكتور أنت هو حي راعة ما أنتي كوالي فدقي أنا سليم وحن كولا هذا الله وأركتانو لك أفريقي ويدو ويدين كقولي هيك عراري سوى النماء بانو يدين لحد ليناي وحي قربتين ما كولا هذا الله حراسات كيار بشتين ما كهذا الله لو كراسي دافتر كتير ما كهذا الله لبي أفرتن كهرجع كتير ما كهذا الله حراسات كان لجور رجع ما كهذا الله وحلا وقوان قل لما تابن كرو ومحد دون سينو كهذا الله وحن دون ينو كهذا الله موشين كيني هلا بي أفرتن إيو ليشان كنتم قبلوا أقبلوا إلا عادي ومكاسب كذا كهذا الله وحكوا سدينه دوايا وحكوا دوين باتينو مالها ديك رواق صدايع أنا رأيك فلقي كروان الكدي بدنا والله لقى بدنا والله تفا هذا اللي وحي هراء خربتين ودنا يلا هادلين كاكلي وأنا حق والله هنا أنا قلا صادق نودوري كنت نودنا كصادق ناي كاكلي أنا كهذا هذا اللي دين ترى وأقبل ما لو حبيدين كدو دوي تيوا وايد لا يلا ما لو أدي ما نصون قلنا وحي استأكتبه ست حضي لبي أفرتن هبة تابنين وده قال الهدية ورب هرتوا حكوا أبشرتها وده قد ينقع دورني وأنا اللي هدي كره ومستحيل ما مدحوينها اللي هدي كره قولها إيجا ما أنت وكيل لنا مدحوينها جمهورية السوماليلاند لبي أفرتن بالجو هذين كره لبي أفرتن بال لجو هرجين كره قولها قلت يدلوني وربي أفرتن كواحدة ومعها إنك عمرك ورنا كان كده جناي أقبل اللبي أفرتن كوي لما أنت ودين كي يرجو عمدا جروه لما تابن كره إلا جو عمدا يقولها يا هوري فرجلين ما ينو هذين اللبي أفرتن كي أي نصنع كرهنا وإحنا فرجلين جو عمدا يقولها كان يهدوا العصبية هاي خرت كان أقبل لبي أفرتن سوق كانوا وحكنا ندين قدرنا مرة حتى بغنا إنسان ولين هذا ريد الله يعني مجورتك ولا نجا هستا ويد لسه سايرين وحنا ودين سمايننا فصح بانو قلينا موشين كي لبادي مدكورين ترى نكدين إلا أنا بطول على الرافية وهذا أنا حكوا صور عيني الباب واسعة وحليقة شيء وهذا يجي سوق جادو أي صاحبي ودودين وهذا يقول بتشوم واسكت تيجي يا مدحتويدي يحكوا بدون ياو وياك تيجي يابان وارتشوم باب الاسكت جاري فصح بينو قلينا وهذا أنا الباب هذا حكوا صور عينينا وطن كويس بدل دون راس مرض وحب براسك بدل من تاي والله بيا فرطن كان أقبله موشين كلا بدنا أريدين كدين فصح عن قلبه اوكي صاحب ضيو أرجعين نقول أنا ها مفتاحين ممكن قعدتكم ومرة يجد شرعية وس الشرعية يوسف شرعية وقالها وكيل هذا كترسل وحنا أنا وكم غني وحيا هاي وأن والله يدون إن أنا نفوق عنه يسقوا حنفلة أنا وحنفلة إن أنا قوة عضينا وعدك قوة قناعنا وحلا عضينا يا أنا وحي تاي والمشاريع كنتم كيبان نودينا مسلبية فرتن كيبان كرتنا وحن رالك الناي هذه الشريعة كنتم كي أي نقنيسون وأي عض هم المرتو ونوه كان سمعنا وهو كان سمع هذا يلبي فرتن نقطه وحي تاي ولا ليال سيد الله الشيء وحوين عرّو إسقى حكومة يلبي فرتن لقدر هو يسوي كحجي حاكمه حكم نفسك وحن لا نهي هذا حكمك أقبل أو أديك اسكو حكومة يد حكمك أقبل لقول في دماغي وحوي وحن لا نهي والله هي وحن وسوي شيء دني وأنا قولي تضربي كنتم كي كفرنا وأنا وكمر أرسلنا إن أنا لودي موشين الله هدنا وكي مذكرين تعالى الله هدنا وأنا مشكلة السلوغان نستو لو عديو وحلا هذا موشين كي أغلبية القدومية الجود ذكرى وشان يكون ترايد اللي قاعد يقول لبيو نافرت وحويين صدق أغلبية دود أيات دستور كفية له مدري وحويين simple majority مدري وحويين absolute majority مدري وحويين 2/3 majority وحويين 2/3 majority